kanaalada quraanka muhaadaraadka kuwa kartoonka carabiga qaarkood oo waliba maarta kuwa akhlaaq fiican iyo ugu dhow inta badan dibadda ba ka taagan kartoonka bishakl caam oo kartoon umman oo carruur u aamini kara xitaa waa la waayay xitaa kuwa carabiga ku hadlayo laakiin kuwa roon baa jiro kanaalada maartay xayawaanaadka ka sheekeeyo ama dhirta iyo wax laga daawado iyo waxyaabaha beeraha iyo xoolaha iyo waxyaabahaas laga daawado isla markaa ayada ah aabaha iyo hooyadu ay ka leeyihiin siyaasad midaysan haddii aabuhu wax u diidayo hooyadana ay u daarayso waxyaabaha ugu daran oo tarbiyada baabi'iyay ka mid ah aad bay loo dhacdaa carruurtaan dhexda ka baxaya waa inay ka midaysan yihiin waa in nidaam loo sameeyo gurigaas la soo dhigay maxaa la yidhaahdaa la soo dhigay telefishinka xilli la furo telefishinka iyo xilli la xiro waa inuu jiro waxaa jirta wax la yidhahdaa routine waxaa laga wadaa wax soo noqnoqdo ay carruurtu la qabsadaan waa inay jiraan telefishinka goormee la daaraa xilligaas ilaa xilligaas markii la damiyo cunug ooyi kara ma jiro weliba ciyaarka markay yaryarka yihiin aad bay u fududahay in lala qabadsiiyo wax routine haddii loo sameeyo routiinka waxaa ka mid a la samayn karo in loo sameeyo routiinka waxaa la dhaha wax soo noqnoqonayo waa jadwal mar walba soo noqnoqonayo in carruurtu aabbaha iyo hooyadu ay ku tarbiyeeyaan inayna seexanin ayagoo adkaarta aan akrinin markii habeenkii sariirta la geeyo oo mustahil ku dado waa in la yidhaahdo waxaad akrisaan xitaa kuwa 5 sano jira iyo kulligood iyo ka yarba kii hadli karo quraan akhri karo qul wallahu ahad 3 mar qul a'udhu bi rabbil falaq 3 mar qul a'udhu bi rabbin nas 3 mar way la qabsanayaan carruurtaan sidaa ku tijaabiyey waxaan arkay in xitaa aniga haddaan hilmaamo ama hooyadood aynu ku dhihin qur-aankii akhriya ayagaa akrinaya mid haddii hurdo la tagta kii kalaa kuu imaanaya suuli aabo hebel muuna akhri qur-aanka aabo qulwalla keliyu akhriyey mid baa hurdada la tegaysa intuu qulwalla keliya akhriyo aabo qulwalla keliyu akhriyey soomada garan waxaan kaloo tijaabiyey oo wax mujarab oo la tijaabiye ka mid a carruurta matalan in lagu dhahaa ka mid a waxyaabaha muhiimka ah inay cadaysadaan ayagoona cadayaanin ayna seexan nin walba buraashkiisaa loo soo gadaya waxaa la leeyahay adigoona cadayna seexan hadda dadku inta badan ilkaha ka sheeganaya waad aragteen waxaa la yidhaha dhakhaatiirta ugu badan oo laga dharkin oo mar walba loo baahan yahay waa dhakhaatiirta ilkaha maxaa yeele carruurtii say xalwad iyo buskud iyo timir iyo shukulaato loo cunayo yay habeenka istuurayaan haddii aad la qabadsiiso rootiin buu u noqonayaa aabba kan muuna cadayanin marmarba cadayga baa ka lumayo ama bahashu daawadii lagu cadaynaysaa lumayso markaasay kuu imaanayaan waxay ku leeyihiin aabbo aawo daawad maxaa noogu soo gedi weyda maxaan ku cadaynaa caawa iska seexdana adiga dhahlo wey carruurta markay yaryar yihiin wax badan baa lala qabadsiin karaa marka rootiin baa la yidhaahdaa waa wax soo noqnoqdo waxaa ka mid ah adkaarta in la wada akriyo adkaarta galabkii oo kale subaxii oo kale waxaan ku arki jiray gabar carruurteeda aad u tarbiyaday jirto yaman deganaan jirtay markii fajarka laga soo baxo gurigeeda meesha waxaa isla dugsi baa ka shida asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah bay wada qaadayaan markay qaadaan kuwa yaryarka oona akhrin karin bay intay gacmaha ku tufaan bay marmarinayaan waa galabkii iyo subaxii marka haddii aabbuhu iyo hooyadu ay ku dadaalaan inay ku iltizaamaan oo ay joogteeyaan carruurtu way la qabsanayaan waxaas asaga waxaa la yidhahdaa routine waa inuu guriga routine ka jiro waa inuu jiro wax maaragtay jadwal ah oo soo noqnoqonayo oo khayr ah oo aabbaha iyo hooyaduba carruurta ay weydiiyaan waxaa ka mid ah telefishinka xilliga la daawado xilli baa jiro maalan waxaa ka mid ah xilliga carruurta meel loo wado haddaa waxaan kusoo bilownay carruurta in waqti la siiyo marka waxaan ilaaway su-aal baa rabay inaan idin weydiiyo usbuucii waa meeqa maalin 7 beri soo maa ninka carruurtiisa siiya hal maalin oo 7 ka mid ah gacanta kor u taago hal maalin qofka siiya hal maalin bas ka hadla haye aniga jumcadaas siiya kaliya anaa idin bilaabay jumcadaas siiya aniga kaliya nus maalin aye nus maalin inta siiso waaya maalin habka macnaha waxaan ku wadaa maalin ballan xitaa haddaad leedahay aadan marnaba ballan gelin علماء كوي ما نسوا خيارات صاحبها أما شقتها كذا حيسو وحيقول لي بلان مهمة هجرت جمعة قلب كعسكو معنا
ما مالك بلان مع عروت كل جيران أي هل معنى أسبوع قفك عروتي سسيو ما جيران ما هنا أي طيب هل مالك من عروت راسيو أو لقيت هذا وأويران لو مالك بفسح يلي أنت بوزما ضد هل مالك لو كان بدين عروت لقيت هذا معقول بلنت أبوين هندي دعوة ما يعلن نيك هذا اللي يراهد بلنت هلو يراهد اللي وين يراهد ما مانكاس ما إمارة مقالة عروتي سوسية عروت ما معك تسحلي دوكسية لك هذا اسمه غيرها يعني وأنا مشغول حالي فسح لي سهيرين بقى أوكي وفول لي جمعة مع الجمعة إيه الجمعة تقول مدام يكون يعني مثلا عيالك هذه تحفيظ كان وكله عن تلاقي جمعة فسح ويسون مركز فسح من المراحل كواس وكلاته هل ما لنا أباها إهلام نحوس بيننا يعني جمعة وصوّد مثلا أما هذه جمعة هي مال تشيلس لقوا عنه جينيا أما مال بوي روضيا أما حديقة بوجينيا طبعا كان يكمل معه بين عروض تلا قالوا حديقة لقي ما لا يعلم عنه حاسية تاسس كذا حاس كأن لقي متى وبنا جاي وشيء وقت الدروس نبى شيء يقولي حنا كل يقولي مني يقولي بس ما قالوا يقولي شيء قالوا هو وين مريكم نسوا معنا أو صعود أو حاس كيس إذا ما صعود حقا بيكذا بيساوي تقريبا واحد كله أنت صوت لا مركزوا أنت تبوا سوي ولا لا ما سوي صعود قلبك قلبنا كرب كلا قبتها مركزالي لا بيبي وعلى marka wuxuu yiri waxa dhisay inta badan waxaan maqalnaa reer Soomaaliya oo gabdhihii ay furniin dalbadeen oo gurihii burburay Soomaaliya waxyaaba sababay waxay arkeen nolol kale casho ma lagu geeyaa lagu leeyahay gabadha kale ku leedahay odaga casho ma idin geeyaa casho maxaa la dhahaa Soomaalida guriga lagu kari jiray maxaa laga daadaya marka carruurta hal maalin la siiyo magaalada waaweyn baa baadiye ma joogo in maalin meel loo qaado in carruurta ku xisaabtamaan inaad safar tahay moogi maalinka aad ka taaban carruurta iyo reerka ay iska leeyihiin marka rootiinka noocaas ah oo soo noqonayo xilli la ciyaaraa jiro ciyaarta carruurta waad ka garhay hadday ayagu ciyaarayaan ama banooni soo ciyaaraya aad aragtid ama telefishin ii daar ay ku dhahaan aaba maalinkeedii miyaa leedahay maya ku leeyahay ayada iska maalinkaas waayo wariyaa iga aamus maadin maada dirin ugu لكن واحد تري نما لو تكشف كيرو حيل نما كعداك يرو عروت سيء التربية هذاك على الله وحبي السماء وحكم له ويري قولوا كله روتين يعني لا وحكم له ويري وقع استحيل شيء ويري شوكولاتة لا ولا بتشرب لا حيوان سويتس كا معك ما نلا عمري لا يفرد شوكولاتة عمري ما دكان كمان كبر كلا هذا دكان كبوكي يوصل كبوكي شوكولاتة رئيس يقول دروين سودي كين أو تأماني شوكولاتة معها توجي حاجة كم توجي عند بركة كل برسالة نظام مركب ولا يقول كذا قولي قانون الله سماه أو قوي سكول يهاي قفكوا حلاه أساء حبينا قفكوا استعمال أساء دجاج أساء كقاضي قف والبوحيس أساء حفظ السنة عدد جسم كان عمل قولي يعمل العلوم باقي عارف كان هو عدد كان وريا واسكوا من إنسان وبسولي الدرب أيوه دريمي وين تراهد سوق شحنة دادي أرض قفك إسكالو ميو هي وكاس كي كلا إسكالو من أنا حاسة قوم سادية موقوسه كذا لكن برضه ما إسكالو من واي ما كأنه والله كفصل عنقه قرب كسديدة حوي على العقاب عنقه سيبع له عقاب أنا أنت بدن عقاب هدي له حنا وصل درجته وقرع سما وأوشة أو ولي بقى برس هو قرع أما السوق هو قرع ما نبان مقالو وين الصومالي بتاعه أنا أحمر يوم أنا كنين قضي الشالوك أما تشير الكيريرة عروت له قرع قال لي أنا مقالو في قارب له قرع هذي رأس بومن وهدي ماشي لا دكتور كوجوسرين ما كان تعب تعب كيقولوا لا يبقى كبر وحكى له كشك يستوي البان على عروت له قرع لكن يجلس مركب يقولي هذا عيال يعني ببس إنه قرعك بالتعليم ببس ما قدرت ماشي وشطر
babis iyo bakoorad inuu garaaca ka badbaadiyo shaabuuggaan baa naxariis baa inta lafahooda la burburin lahaa marka anaga waxaa noo soo degdegaysa ciqaab marka la dhaho in cunuga la qabto la garaaco la edbiyo bal waalidiinta hore waxay dhihi jireen aabbaha markay cunug macallin u geynayaan hilibka adaa iska leh lafaha caanaa leh كل ما يقول رأي ما قال لك هو عارف وسواد وشيء عنق مركا وحاول العقاب أو صاص لو قرع عقاب انتقام هالمود هذا يروح معهم مغلي وحيا هي معنا سود عنق قرعي عنق سود بودي أو مارتي انفكشن يوحو قاضي أو بري أو دنتي طبعا عشان ما في العلم قال لك المقالين الصومالي كان عليه عنق دنتي وحان مغلي عنق جاس in dibadda laga keenay si Soomaaliya loogu tarbiyaday cunug dibadda laga soo celiyay buu ahaa naxdin buu wada inta laga yaabaa meel aan isku garaacin ka imaa ciqaabtu marka waa la noocyo badan tahay ushaas cunuga intiqaamka waxaa jirta garaacista lafteeda waa labo mid aad moodid argoosi oo dilitaan ah oo cadaawad ah oo cunuga laftiisa cuqdad u qaaday ee mid naxariis ku dheehan tahay aan kala sheegi doonaa عقابته هو إنه عبادته وحكم ده أبوه إنه عيالك كل عقابه قل وإن النقطة واحد يفوق وحال هو عيالك إنه يكبر قام أشع هدي أشع أتكبر يسوي لقب سنة وحام أستاذ تصير الحاجين عيالك عني تؤدوا قرعة مربشين توديك كبارا ما بقي شيء ديك أسوأ كذا أنا يقول كيسة أيها غير أبا إنه اللي أنت تسكسر درس خصوم maxay loo qabsadayba laakiin aabuhu markuu ilmaha garaacay ilmuhu wuxuu sugayaa maalinka uu garaaci doono marka garaacu wuxuu noqonayaa wax meel oo u xiran oo ka baqaan uu sugayaa marka waxa ka mid ah noocyada loo ciqaabo cunugu markuu khalad sameeyo in meel loo wadi jiray loo diido hadduu aabuhu meel u wadi jiray cunuga oo maaragtay meel ku ciyaaraan oo kale meel wax ka soo cunaan oo kale maalin fasax oo meel geey jiray inuu dhaho maanta ma lihidin حيا خلط كاسة سمسين كريه كاسة سمسين لكن واحد ربع إنه ما كهرب وشاحه قف واحد سمين هذا خطبه كلا كذا عرفت وين خطبه لو صوب أبياش كل يقول سؤال صبح وين عرفت الدياري هذا يسكول كتوه ولا كرتبه لكن هذا يكون يسكول أنجوري ما كهلا يا مرة هذا خطبه لو صوب دي تريتي لو صوب ما نكا إنه عقابة خطبه اللي قاعدين وحكم إذا واحد وجعلي هاي مثلا أبوه سمبوس بوكاني أما واحد عربت جعليه مكان قفة خلد وين سبيه خلد كير كان واحد لقى انتهى مسكال أبطال عربتها لقى بودا فيها وحول بين اللي تبي يستاهل وفيه مركع خلدات كوين مركو قالوا وحي وعين وصيه هرتي سكوي كلام وصيه أو أسوأ وعكين عن سير السين حد هو قالوا لي مركع سو أبو عليه حواري ولا أطلقه أبو أنا سو حسب مسجد ها محمد وصيه واحد أنا واحد سنين وقوق يعني ما في حد اسكديس هذا كتب وقت أنا واحد وحول مرة وقصير لكن بشرط وحاء أبني ما أنت خلبي وقاعد هذا هتسيسه ما أنا كنت بدأت على بين بمودي وين أتكلم بيسه واحد أقول شيء تون تراو واحد صفك السماء ماشي أو مو وضعيه وين أتكلم بيسه أحكم ده dadka waxay sameeyaan ninba waxaan la yaabay carruurtiisa markii uu garaacay maxaad samaysaa baan ku waxaan u sameeyaa buu 10 nuqdo 10 point ama 10 darajo jirto iyo bilow qof walba wuxuu leeyahay 10 darajo 10 ka darajo qofka khalad sameeyo ma helay qof walba waxa la fiirin bishi ma 9 buu helay ma 7 buu helay ma 8 buu helay ma 5 buu helay ma ku ka helay marka carruurta markuu goodinayo ma garaacayo عليه وحنا سمعنا هذا جوجو إذا بوينتس بالومين إنسان وجاله عروض مريم بقصة قدر بودجنا ما كأد بعمل عيال مركوي عليهم أنا شيء نكا صاحبان وعليهم أنا بوينتس بان عليه بيش أنا تاسع لسي العجا أمو حاسو أبيسي بيش ورنا وحاسا لسي أنت صار وحاسا هيستا بوينتس marka mid walba wuxuu dadaalaya points halkaas aan ugu qoray guriga xisaab dejinay marka waa nooc ushi kamid ah ama ciqaabta kamid ah oo laakiin la habeeyay oo nooc kale laga dhigo waxa kamid ah canaanta abu inuu canaato
canaan ay ku jirto inuu tusinayo khaladka aabba soo aniga waxaas kuma sameyn soo waxaas iska daa kubadhe maxaa sidaa u samaysa haddaa waxaas samaysa aniga kuma jeclin waa kaa maaragtay si canaan ah oo laakiin tii qaylada ahayd ee aan ahayn maxaa la yidhahdaa darbiga kuu soo haray garaaco waxaa weeye waa laba nooc saa soo sheegnay waa in cunuga lagu nafaxo oo maaragtay qof waxaad arkaysaa cunuga garaacayo ilaa dhiig uu kaa keeno qof waxaa arkaysaa bareys oola baxayo oo isaga weyn wax haddii lagu dhufto una u adkaysteen inuu dhufanayo macallimiintaa ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa ka mid ah garaacaas waxaa la yidhahdaa intiqaam waa cadaawad buu cunuga ku gaaraya midkaas looma baahdo haddii khalad weyn uu sameeyo aabbuhu inuu garaacada ay tagto waa inay noqoto garaac uu dareemayo cunugu inuu ul yar iyo wax ku dhuftay oo u badan maaragtay qayladaas xitaa lagu qaylinayo iyo maxaa waxaa u samaystay intaa keliya ku filan laakiin waa inuuna noqonin wax dil ah maalin baan macallimiin dowro u qabanay marka waxaa ka sheekeynay garaaca in iska daayo adduunkao dhan carruurta lama garaaca inta badan waxna waa la maraa marka nin baa hadlay rag badan baa garowsaday nin baa hadlay wuxuu yidhi nin waxay laabis wax badan baa noo sheegtay laakiin carruurta garaaceedii waa wadayna mana daynayno saas cunug aanu la garaacay see quraan ugu baray marka halkaas bay dadka qaar ka taagan marka dadkaasoo kale haddaa dhahda hal mar usha wada jooji inuu nagaa yeelin baa laga yaaba mugta laakiin at least bal ushaan cunuga nafta looga qaadaya in laga daayo oo cunuga waxaan xustaa mar aan dugsi quraan dhigan jirnay laba macallin baa noo dhigi jirtay mid baa aad dadka u diri jiray midna dirkiisu ugu yaraa laakiin wuu goodin jiray oo waa nagu qaylin jiray waxaan ka baqi jiray macallinkaa usha yar halkaa marka soo baxa waa fadhiisan jiray macallinkaan usha badanna caadi bay noo noqotay xagga asagoo garaac ka soo wadaan ku ciyaari jiray marka marmar waxaa weeye ushu ma ahan waxa iyada wax tarbiyadeynaysa iyada ma aha ee waxaa weeye cunuga sida loo tarbiyadeeyo ama uu loo tusiyo wey qodobka sagaalaad walaalayaal waxaa weeye khayru umuuri awsatuha cunuga in xargaha loo sii daayo oo wax xisaabtan aan lagu samaynin lafteedu khalad weeye ma saxno annagu inta badan waxaan samaynaa cunuga markuu yaryahay khaasatan sanawaadka hore wax walbaa loo sii daynaya 3 sano ayuu markuu jiray ilaa heer wax uuna isaga lahayn buu walaalkii kula dhagayaa dhaqan soomaali aad bay u badan hooyo u sii daabaa leeyahay isaga kaaya maalin ugu gacmo 5 jir ah wuxuu yidhi nin kale wax soo qabsaday marka waa ka celiyo wuxuu ninka wax saas kale u daa fiir aabo soo arin kama yeeli aabo soo arin kama yeeli maxay rawo ku soo tarbiyadoobo xaafadu uu ka maqlay muqta oo haddaad ka yartahay istoorada yar oo ciidda lagu ciyaaro tiis intuu iska jijeeliyo uu iska naco yumidda midka kula dhigaya waa looga qaadi doonaa muqta marka uu iska lalminaya wuxuu ku tababaranaya inuu dadka iska lalmiyo wuxuu hadhow mujtamaca markuu dhex tago iyo qof walba wuxuu haysto iska lalmin hadduu rabo markuu iskuulka la aado waxaan adiga iska mani waxaan adaa iska leh waa in la baro cunuga ha ka weynaada hadduu rabo aabba asaa kaa weynaysa asaa kaa yar iska daa cunuga marka waa in uu barto indibaadka ama iltizaamka ama waxa inay wax nidaam ah ay jiraan aabba xilligii maanta into aan wax maaragtay meel hebla aali jirnay ama banooniga ciyaari jirnay ma ahan ee xilligeeda lama joogo waa inuu yidhaah qodobka hornaad waxa weeye carruurta in la siiyo xaqooda ciyaarta inay ciyaaraan anaga mujtamaceena inta badan carruurta inay ciyaar u baahan yihiin uma qabaan maxaa yeelay ciyaalka baadiyaha iyo waalidku isma arki jirin sidaa la socotaan oo waxa weeye waxaa dhici jirtay meelahooda si isaga ordayaan waalidkana wuu iska mashquulsanyeen laakiin haddeertan magaala la imaaday guri yar baa lagu dhex jiraa carruurtu waxay sheegayaan culimmada tarbiyadu gaar ahaan ilaa loo gaaro 9 sano iyo wixii ka hooseeyo ciyaaro fara badan bay u baahan yihiin
tabar fara badan baa ku jirto iyo daaqad iyo xoogga meel ku bixiyaa lagu baahan yahay anaga marka dhibka ugu dhaco waxa weeye carruurta waxaan rabnaa inay edeb u fariistaan sida qof weyn wariyaa edeb halkaa u fariistaan leeyahay sida saan midka u fariiso saa yidhaahdo yaa waxaan u naqaana wiil edeb leh midka oo ordana waxaan u naqaana mid murabishoyn kaa qabo oo laga fariisan waayo cunuga ciyaar buu u baahan yahay wuuna ku samaysan yahay soomaalida waxay ka sheekayn jireen nin oday ah wuxuu yidhi bay dhaheen waxaan rabaa carruurta caanaha la siiyo in la isiiyo caanaha dhiisha ugu jiro oo iska cabayaan in la isiiyaan rabaa markaas waxaa lagu yidhi inta ay ordaan maalinka orda adiga marka xoogaa orod buusaan yiriyo markuu 2 jeer galay dhulka ku dhacay marka carruurta waxay u baahan yihiin halkaa waxaa ka fahmaysaa carruurta waxay u baahan yihiin orod waxay u baahan yihiin daaqa xoog badan bay hayaan ciyaar fara badan bay u baahan yihiin waa inaan ogaano oo ciyaarta aan u diidin gurigeena xaribin oo burburin laakiin ciyaarta inaan u diidin oo ciyaaraan aabo tartiib u ciyaara aba halka ku ciyaara oo waxaasi waxa ciyaara waxaan ku ciyaara waa in la yiraahdo qodobka ku xigo ee 11aad qodobka 11aad أنا أقول لك الله وكله فقط وأسوق بيننا إن شاء الله وحوي عروض اللي هو أبوه ثقة بالنفس أما كرسوني اللي هو أبوه وعروض اللي دريمان إن أبوه تكون كرسوني وهو البهديل ده وريا عامس وريا شبه وريا عيال بلده لو تهديده لو غيره عنق حصاب حياة كرسوني الآن مركع وحا هبون إن أبوه درنسيه إن عنق وكرسوني النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي ويل أيام جريان رجل مشايخ وأولياء لما يشوي فديان الصحابة نبي وكأنه قال هذا الويل عنها إن أولياء شكب العوض ما يرميسا مركها كنت سنيسا إنه احترامي ويل كي يروح يري ما ينبي الله عنها هذيك أبحنيس ونصيبك عن كله نمنا وقت نسولي مريم مركها هذيك بالوضع السجب على قبل العالم marka halka waxa ka cad in nabigu uu maartay uu ixtiraamay oo cunugaas uu tusiyay kalsooni inuu qabo ama kalsooni uu dareensay waxaan ustaad sheekh Masri ah ba majliskiisa fariisan jirnay marka rag culimo iyo ducaada isugu imaado arrimo diin ah iyo waxa laga doodaya maartay cilmi ah marka wuxuu sameyn jiray wiil yar waxa uu joogo 3 jir meelaha saar ku qiyaas marka kalsooni uu gelinay wuxuu leeyahay maxamed ما خصوصا كتاب كاس أنت وين كي محمد كتاب هذا الصواب محمد بمان بقول أنت أي شيء حاليا بيسوق تقديرنا يعملوا كيس أنا قدر عدا هذا إذا كانوا بيرتاح إن عنقة للتقديرية على الرأي الباشا كسر أول بس كتير إلا داموي إن التقدير كيس للصيف هذه العنقة ودعوة امتحان ودعوة مثلا امتحان كبار يعني متبقى قطعي maxaa sameyn lahayn anaga inta badan walu qeeyay soo wala ana soo wala digaa soo hadii uu dhacay marka imtixaanka ku dhacay marka hadii uu qeeyo la diro ma inuu fiicnaanayo kula tahay inuu ka sii dara laga yaabo marka waxa haboon in si kala loo daaweeyo niqaash wala galo iyo xiwaar oo la yiraahdo maxaa ku dhacay hal yaa asbaab inay keen macalinku inuu ka fahmin ama inuu si wax ka noqdeen marka in la saacido oo macallin loo qabto oo si kale loo xaalo oo ma aragtay lala niqaasho cunuga kalsooni la dareensiyo qodobka 12aad waxa weeye carruurta in lagu tarbiyadeeyo mas'uuliyadda xambaaraan dadka aad bay loogu yartahay Soomaalida waxay ka sheekeyn jireen waxay dhan ciyaal la yiraahdo ciyaal maama ama magaalada ugu ku koray waxay yiraahdaan baa leeyahay hooyo injeeraysi ila 20 sano markuu gaaro hooyo injeeraysi uu sagahaya marka gabadh bay isguursanayaan cunug bay u dhalaysaa hooyo wiilkayga injeeraysi uu leeyahay marka ku sixirto maxaa yeelay waxa laga yaabaa in lagu soo tarbiyo wax walba in afka loo gelinayo oo lagu soo tarbiyaday inuu mas'uuliyadda qaado cunug marka inuu mas'uuliyadda qaado waxay ka bilaabataa buwaagtiisa inuu meel dhigto 4 sano 3 sano iskuulkana hadda yaa booqmaan weyn waxay ii sheegeen maamulku in ciyaalka lagu tarbiyeeyo wixiisa inuu meel dhigto from 3 years 3 sano markuu laga bilaabo waxaa ay aawo maxaa meel dhigan weyday kabiis inuu meel dhigto buwaagtiisa inuu meel dhigto
waxa uu ku cadeynaya inuu meel dhigto hadayna waxa ka soo ishaaro adiga meel ha u dhigi mas'uuliyadda ha qaaday ee waxaad fartaa inuu asagu meel dhigto oo wixii uu maartay uu dabato abayaasha qaar ee tarbiyada aad u fiican waxay sameeyaan cunuga wada aragteen oo iskuulka markuu aadayo waxaa la siiyaa biil joogto ah Soomaa biilkaas masruufka oo iskuulku waxa uga gadgato ee la siinayo haddii adiga aad siiso maalin walba uu ka qaadanaya ilaa uu weynaado saasoo ku wadaya marka kii hooyo cijaaraysi dhahay ayuu noqonayaa marka waxaa la sameeyaa in cunuga masruufkiisa lagu wareejiyo toddobada maalmood gaar ahaan markuu soo yara weynaado 10 sano iyo 9 sano markuu soo gaaro in la dhaho waxaa la yareerayso isbuucan intaana leedahay marka ninka wuxuu sheegay inuu carruurteena ku tijaabiyey inaan iraahdo isbuucan ama bishaan markii yar weynaado weliba bishaan masruufkaada waa ka iskuulka ku aaday marka waxaa dhacday mid ka mid ah ayaa hal maalin uga baxay dadku isku dhaqaalaha qaabka dhaqaalaystaan midna uu gaarsiisanaya marka laba mid oo ka mid ah oo ku najaxay bishii bay ku dhamaysteen midna hal maalin mise laba maalin buu uga baxay marka muuna garaacin mana canaanin xayawaan baa tahay loser baa tahay waxaad luminaysaa waxa ku musan bishii kale marka la gaaro kiraabo qaylaabsiyo labadaan ay maamulsiin waajibkooda waa ka soo baxeen lacagtoodina waa dabarteen khayr la siiyo adiga laakiin ballanta aan kala ka soo bixi weey sida ogeey maalin walba hadaad qalin baahan tahay hadaad koob cabitaan baahan tahay aniga iyo ana hal ku siinay hal shilin baan ku siinay aniga ragga kalena waa kuwan bisha soo socoto biilkeedu waa kaas qabsada marka wuxuu dareemay cunugaas aad buu wax manay soo marka soo biil aab mar dambe uma noqonay mar dhacayse bishaasi waa si mar dambe uu soo noqon marka waxa uu toobaray cunugaas inuu mas'uuliyadda u maaragtay waxa baa qodobkan soo gabagabeeyay waxa walaalayaal awlaada in abaalmarin la siiyo al-mukaafa'a ayaa la yiraahdaa waa in wax markuu sameeyo uu dareemo in mukaafa'a la siinayo ama abaalmarin hadaa waxa sameeyay abaalmarin yaa ku siinaya abaalmarintaas wax badan bay jeclaysaa ma sha Allah usbuuca waa ficneedeen balamiin waa soo baxeen xilliga ilaalinay iyo balanta guriga waa ilaaliseen marka jaayizadaas aan idin keenay maanta ama soo baxa maanta qayb ay idin wadayaan marka waxaas macno weyn ku sameeysaa maalinka soo socotana inay ku dadaalaan ay dhacayso walaalayaal mawduuca tarbiyatul awlaad waa mawduucan ballaaran waxaa jirto meelo wali aan gaarin oo ka sheekaynin oo ka mid tahay carruurta teenagers ka yiraahdo ama la yiraahdo muraahiqiinta oo ah kuwa soo qaangaaray ee dhibka badan lagala kulmo tarbiyadooda see loo tarbiyadeeyo carruurtaas waa carruur u baahan daryeel gooni ah waxay u baahan tahay muxaadaraad gooni ah in looga hadlo laakiin caawa intaas aan kusoo gabagabeynayna insha Allah tacaala waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo abayaasha Soomaalida waa iyo Soomaalida bishakl caam waa dad diinta jecel waa dad carruurtooda inay tarbiyayaan jecel waxaan aad iyo aad usoo jeedinayaa caawa laga bilaabo intaan meesha fadhido in aan waqti siino carruurteena jadwalka inaan ku darsano inaan waqti siino carruurteena oo galabkii markaad shaqadaada dhamaysato intaad maqaayad ka sheekayn lahayd aad carruurtaada aadin oo carruurtaada ugu farxaan oo carruurtaada ku arkaan oo maalinka fasaxa aad leedahay iyo maalinka aad firaaqa hesho inta aad iska soo tegi lahayd oo meelahaas ka fadhin lahayd aad carruurtaada la sheegaysatid waqti siisid hadhowta waxaan lahaynaa carruurtaan waa la tarbiyadeyn waaye waa la kari waaye annagaana juhdi fara badan aanan gelinin ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa carruurteena inuu noo dhowro ilaahi subxaana watacaala waxaan weydiisanaynaa kuwii mas-uuliyaddaas tarbiyada ka soo baxo allah naga dhigo carruurtaa loo duceeyo aad iyo aad in loogu duceeya loo baahan yahay ambiyadii baa carruurtooda u duceyn jirtay wajnubnii wabaniya an nacbud alasnaam ayuu leeyahy nabi illaahi ibraahim ilaahay naga aniga carruurtayda naga najee inaan asnaamta u sujuudno ama aan caabudno ayuu leeyahay marka walaalayaal in carruurta loo duceeyo ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in laga dhowrsado in carruurta la habaaro in sheekha hadda dhagtay u sheegay soo xusuusiyey
عروت هبار كولا نصوص بقى صو عروتي عروتينا يحولينا هبارنا maxay waxa laga yaabaa inay waafaqdo saacad ijaabo oo sabada furanta ilaahay uu ajiibo markaasaad hadda ka shalaaya markaasaad waxaa leedahay alla maxay waxa ugu dhacay marka habaarka la habaara carruurta balaaya la ku kan alla kaadi alla ku yeelay in la iska ilaaliyo oo carruurta loo duceeyo oo maaragtay aabayaal iyo hooyooyin intaba carruurtooda inay u badbaadaan waa jecel yihiin ilaahay la kaashado ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sanadeen inuu waafajiyo khayrka خاطر إلى أن نوصل عبادة أن نقبل عروتنا يا عروت المسلمين يا أولاد المسلمين تورا مركز الجوجان يعابوا يهويوا وعروت أحد من يسوع إله سبحانه وتعالى هو كامل إن كتر بيوضع دين الإسلام إله وحده سنة إنه هو كامل إن يسنا هو الأكثر أو يجعله ولا يجعله إنه إله هو تربيته إله وحده سنة أبياشا يهويوك عروتو كلمة أما يمارس الأخلاق ما يو موريان يو بلاي أو قد إلهي موسى بالبالي أنت حرم إلهي موسى فوق أنت مارتي لنتي إلهي موسى عليم إلهي سبحانه وتعالى إنه كان قرة عين لوالديه هو إنه يكون قبول سلام إنه كان إلهي والد كان أحرسته موسى دالي معلمين تاني جزاكم الله خير على حسن الاستماع وأنا أقول لك هذا بارك الله فيكم والسلام